soo dhawaada asxaabta waa maanta maalin kale cusub waxaan ku suganahay guriga Alraas Apartment oo ku yaala xaafadda Islii ay Soomaalidu u badan tahay gurigan wuxuu ka mid yahay guryaha uu dhiso kambaniga Sawdare Sahil sida aragtaan dhismadii ku socoto hadda wuxuu marayaa dabaqi 12aad haddii aad xaafadda Islii aad guri ka rabtid gurigan ka faa'iideyso wuxuu ka kooban yahay 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi 2 qol iyo fadhi iyo qol iyo fadhi buu ka kooban yahay gudaha inta gali doona dabcan dadka shaqaalihi ba shaqada hadda ku socoto oo joogan marka gudaheenu arki gali doona waa isla arkeena ay soo raaca sidoo kale gurigani waxa weeyaan guri si casri ah loo dhisay dabcan guriyaha laga dhiso xaafadda Islii aad buu uga duwan yahay adiga xataa marka timaadid waad arki kartaa gurigaha qolaalka fadhiga guriga dhan gudihiisa aad buu u waaweyn yahay sidoo kale gurigan waxa loo dhisay ama loo diyaariyay si casri ah dabcan xaafadaha ama guriyaha Islii laga dhiso xoog buu uga duwan yahay gurigan hawada ah helaysid dhaxda dhan dabcan waa arki kartaa dhaxda waa la baneeyay si aad hawo iyo iftiin u heshid guriga waliba isagoo wadooyin afar wadana dhinaca ka maraan uu saaran yahay meel maxay ahayto hawale dabcan sidoo kale gurigu wuxuu leeyahay laba lifti buu leeyahay wuxuu leeyahay ceelkii buu leeyahay korontadu kaama tigaysa 24 saac generator uu leeyahay marka waa guri in badan maxay ahayto laga taxadiray oo laga fikiray in maaragtay dhinac kasta hadii biyo aysan ka go'in oo guriga ceel leeyahay sidoo kale korontada hadii ka tagto oo markaba generatorka uu ku soo dhacayo laba lifti buu gurigu leeyahay sidoo kale guriga wuxuu leeyahay meesha idinku sheegayba hawo saaran yahay oo waxaan ku iri iftiin iyo hawo hadaa u baahan tahay gurigan meesha laga dhisay ayaabad ka arkaysaa marka waxaan ku leenahay soo dhawow oo ka faa'iideyso guriga Alraas oo dhiso kambaniga Sawdare Sahil ku yaala xaafadda Islii Soomaalidu u badan tahay soo dhawaada